السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابك وحن جنال كينا وهليا أمدا كسود ولا تحنيهني لحد يكون هبين فضلا هدية نقول عصب تسود و سبسكرايب صار جنبلاك كان ركمو سي كوسو جارا وحول بأن صادق ندربذي با هدية هورين ولا جوتينا لايك صار سينا شرقري ولا ودك أصحاب تاذا كندي وفكر كيف يعني كنا سوق قرقبته هو سي كومنتيالا مركز دعوة كذب أنا جن سي أي دي رجلين يقول نقطه ما السنة تحضرنا داوشو عن هبينكي سدحات أي لجاري هبينكي سدحات مركي لجاري أي دنيزات كتري ولا شيء ذا أبايو نوع ماستر شاكذي حلي يصير وحكون ماضين مركز أي شارزات تري بقرو تاجر كي مركي نبتي سبت بادي أيوح ومات علي أضياشي يلا أمشي لو كل ضريري وحاط شاكذا سكيا بدنيت شاكذي ننكي كلومي صدحها مركز أيو بقر كيري ومحيها شاكذي ننكي كلومي استهاها هالكاس أي شارزات كبلوذي شاكذي ننكي كلومي استهاها شارزات وحي تري بقر كيجيو وحاجري نن كلومي استهاها آدنا أدأوينا وحاونا لها حاسي لو قبدود مقالدنا كما نولين قبك سبولسن نينك كلوميستاها waxa caado ahayd in maalin kasta shabaqa bada afar jeer ku tuuro wax afar jeer ka badanna wiligii kuma tuurin maalintii dambe ayuu soo baxay wuxuuna yimid bada ayadoo xil duur ay tahay markaas ayuu shabaqii bada ku tuuray ilaa shabaqii gunta bada gaaray markaas ayuu isdhahay bal fiiri wax shabaqa ku soo qabtay markuu soo jiiday ayuu culays dareemay markaas ayuu isdhahay qabo laakiin aad ayuu culsaa wuuna awoodi waayay inuu soo qabto maadaama uu oday waayeel u ahaa sidaas darteed doontii uu saarnaa ayuu xeebta geeyay asigoo uu shabaqa jiiday siduu u soo jiiday ayuu arkay in waxaan culisiya uu shabaqiisu qabtay maanta dhanna jiidistiisa uu ku rafaadayay inuu yahay dameer baqtiyay markuu odayga arkay aad ayuu u murugooday asigoo yidhi laa xawla walaa quwwata illaa billah halista risqigu waa mid cajiib ah kadibna mar kale ayuu badii ku naqday oo shabaqiisa tuuray asigoo yidhi bismillaah cabaar markuu joogay ayuu dareemay in shabaqii wax ku soo dhaceen wuuna soo qabtay laakiin wuxuu naqday jawaan ay ka buuxaan dhoobo iyo dhagxaan markii odaygii arkay ayuu haddana murugooday wuxuuna meesha ku tiriyey gabay oo ku muujinayo calaacalkiisa markaas ayuu mar saddexaad badii ku laabtay oo shabaqiisa tuuray markaas ayuu waxyar kadib dareemay inuu culays yahay markuu dareemay inuu culays yahay ayuu soo qabtay oo soo jiiday balse nasiib daro waxaa ku jira qashin iyo quraarado odaygii miskiinka ah aad ayuu usii murugooday mar afraad ayuu badii ku laabtay laakiin markaan gacmaha ayuu kor u taagtay oo alla baryey wuxuu yidhi ilaahayo waad og tahay in afar jeer ka badan in shabaqa badda aan ku tuurin saddex mar ayaan ku tuuray waxaana ii haray hal mar oo keliya ee ilaahayo wax qaaqaba igu soo rid wuxuuna yidhi bismillaah isagoo shabaqii badda ku tuuray kadib markii uu cabaar sugayay ayaa waxaa dhacday in shabaqii uu cuslaaday weliba culays aad u daran ilaa uu ku sigtay odaygii inay la gadoonto doontii uu saarnaa kadib markii odaygii wixii tawar iyo awood uu ilaahay siiye isku daray ayuu dibadda soo saaray wixii cuslaa balse waxa uu naqday sanduuq maar ka samaysan afkana ka xihan ayadoo dushana ku asteysan yahay faraantiga nebi sulaymaan calayhi salaatu wassalaam wuxuu isdhahay maanta calafkaaga ayaa saan naqdayo oo sanduuqan qaad suuqa maarta iyo macdanta lagu iibiyey waa intaas quudkii maanta aad ka soo yeeshaayey balse markuu qaad is yidhi ayuu qaadi waayay culays dartiis wuxuu go'aansaday inuu furo si uu ogaado wax ku dhex jira sanduuqan mindi uu watay inuu la soo baxay ayuu sanduuqii furay balse waxa uu naqday sanduuq eber ah oo maran ninka asigoo yaaban ayaa sanduuqii waxaa ka soo baxay xoogaa qiiq ah kaasoo marba markii kasii dambaysay sii xoogaysanayay ilaa qiiqii oo daruuraha gaaray odaygii miskiinka aad ayuu ula yaabay kadib qiiqii ayaa isqabsaday wuxuuna isku bedelay cifriid aad u weyn oo madaxiisa daruuraha marayo lugihiisina dhulka yaalaan weynaa intuu ka qabo ilaaha weyne wuxuu lahaa cifriidkaasi madax u wareegsan sida kubadii oo kale iyo gacmo aad u qara waaweyn lugo aad moodo inay yihiin derbiyadii dhufayska aad u dheer aadna u dhuuban iyo ilka aad dhagaxaan waaweyn moodid isaga oo badda ka soo baxay haddana cifriidkaasi waxaa ka muuqday boor iyo basaas markii odaygii kaluumaystaha arkay cifriidkan aadka u weyn ayuu cabsi la gariiray oo ilkii xataa isgaraaceen candhuuftan uu la qiwaayay cifriidkii markuu arkay odaygii kaluumaystaha ahaa ayuu yidhi laa ilaaha ila allah sulaymaanu nabiyullah kadibna wuxuu sii raaciyey nebi allow ha idilin mar kale hadalkaa ima khilaafi doonee markaas ayuu odaygii yidhi ma sulaymaan baa nebigii ilaahay aad leedahay iyadoo oo nebi sulaymaan uu geeriyooday 1800 ka hor warniyow maxaad tahay qisadaaduna maxay tahay maxaana halkan ku geliyey ayuu odaygii weydiiyey cifriidkii markuu maqlay odaygii hadalkiis ayuu wuxuu yidhi bishaaraysa oday markaas ayaa odaygii yidhi maxaan ku bishaaraystaa cifriidyahow aad igu bishaaraynaysaa cifriidkii ayaa yidhi geeridaada ku bishaarayso isla saacadan aan joogno ayaan ku dili doonaa weliba waxaan ku dilayaa dilistii ugu xumayd markaas ayaa odaygii yidhi oo maxaan ku mutaystay inaad sidaas oo dhan lii dilo wallaahi adaa u xaq leh haddii cid la dilayo waayo maxaad igu dilaysaa adigoo halkii ku dhibaataysanayd aan kaa soo saaray awaalkay ma sidaas buu naqday markaas ayaa cifriidkii yidhi warkaas ka bax ee dhimasho noocee ayaad doonaysaa odaygii ayaa ku yidhi maxaan kaa galabsaday oo aad sidan oo dhan igu dilaysaa markaas
markaas ayaa cifriidkii yidhi haddaba anaa kuu sheegayo dhegeyso. odayga oo cabsanaya ayaa yidhi soo gabagabaya hadalka, nafteeda lugaha ayay soo maraysaa. cifriidkii ayaa markaas hadalkiisa ku bilaabay, waxaad ogaataa odayahow inaan aniga ka mid ahaa jinnigii maariqiinta ahaa, waxaana ku caasiyey hadalkii nebigii allah ee sulaymaan binu daa'uud. maalintii dambe ayuu wuxuu ii soo diray aasib binu barkhiya, si qasab ah ayuuna igu waday, wuxuuna ii geeyey nebi sulaymaan, waxaana la ii hor istaajiyey nebi sulaymaan hortiisa. markuu ii arkay nebi sulaymaan wuu iga cudubilaystay, wuxuuna ii soo bandhigay iimaanka alle iyo inaan hadalkiisa adeeco, waana diiday. markaas ayuu dalbaday sanduuqan, wuuna igu xiray asigoo igu khatimay faraantigiisa. magacii alle ee weynaa ee haddaad alle ku bariso ku ajiibayo ayuu ku qoray, wuxuuna amar ku siiyey jinnigii adeecsanaa inay igu tuuraan moolka badda, wayna igu tuureen. markaan badda ku dhex xirnaa muddo 100 sano ah ayaa waxaan ku qayliyey qofkii iga soo bixiyo meesha inaan hodan ka dhigi doono inta noloshiisa ka hartay. 100kii sano ayaa ka soo wareegatay, meeshana qof igama uusan soo bixin. markaas ayaa haddana ku qayliyey qof kasta oo iga furo inaan u furi doono kaadka dhulka oo dhan. 100 sano ayaa ka soo wareegatay, haddana qof iga furtay ma arkin. kadib markay ka soo wareegatay 400 oo sano waxaan ku qayliyey qof kasta oo iga furo waxaan u samayn doonaa wax kasta oo iga codsado. mar kale haddana qof iga furta waan waayey. markaas ayaa xanaaqay xanaaq aad u daran, waxaana dhahay qof kasta oo iga furo isla saacaduu iga furo ayaan dilaa, anigoo doorsiinayay sidaan u dili lahaa. markaasna adigaa iga furay ee niyeyso sidaan kuu dili lahaa. markuu odaygii kalluumaystaha ahaa maqlay hadalkii cifriidka ayuu yidhi waa cajiib wallaahi, hadda qofkaad sugaysay inaad disho ee meeshaan kaa furi doono ma aniguu noqday. markaas ayuu odaygii haddana yidhi iska kay cafi, allah ha ku cafiye. markaas ayuu jinnigii yidhi waa qasab inaan ku dilo si aan balanteedii u oofiyo, ee waxaad rabtid intaadan dhimin ka hor ii sheeg si aan kuu xaqiijiyo. waa balan inaan ku dilin anoon kuu xaqiijin. markaas ayuu odaygii xoogaa fikiray, kadibna ayuu yidhi magaca alle ee weynaa ayaan kugu dhaariyey, adigoo intaan la eg sidee ku gashay sanduuqan aadka u yar. cirfiidkii markuu maqlay magaca alle ee weyn ayuu gariiray. markaas ayuu yidhi ma waxaad rumaysan laadahay inaan sanduuqan geli karo? markaas ayuu odaygii yidhi macquul maba ahan, waxaaba shaki iga jiro inaad sidaad sheegayso sanduuqan ka soo baxday. markaas ayuu jinnigii yidhi haddaba anigaa ku tusayee arag. kadibna shahrazaad waxay ogaatay in subixii soo dhowaaday, sheekadiina way goysay. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaal.